بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada ee xukuumadda dan qaran waxa maanta ay yeesheen kulankii ugu horeeyay ee toddobaadlaha ahaa oo maalin kasta oo khamiista toddobaadkii la qabto waxaana looga hadlay dhowr qodob oo muhiim ah kulanka oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa arrimaha looga hadlay ee ajandaha maanta waxa kamid ahaa xaaladda abaaraha iyo waliba dadaalka dawladdu ay wado iyo shacabka ee la xiriira gurmadka dadka dhibaataysan iyo waliba xaaladda guud ee amniga wadanka iyo safaradii ra'iisul wasaaraha iyo wufuudiisa ay ku kala bixiyaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa ugu horeyn ra'iisul wasaare Xamse oo ka hadlayay safaradaasi ayaa waxa uu ka hadlay safarkii isaga iyo wafdigiisa oo ay ku jireen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo laga soo doorto gobolkaasi ay ku tageen magaalada Beledweyne oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe ujeedada ugu weyn ee safarkaasi uu tagaynay ahayd sidii uu kuurgali lahaa xaaladda dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay barakiciyeen iyo waliba colaadda ka taagan gobolkaasi oo qaar badan oo dadkii uu la kulmay xiriyaha dadka soo barakacay ra'iisul wasaaruhu kula kulmay dowladka magaalada Beledweyne ay ahaayeen dad ka soo barakacay in tuulooyinkii ceelasha ay ka duugeen kooxda nabadiidka ah oo dawladdu markiiba ay talaabo ka qaaday oo ra'iisul wasaaraha iyo golihii wasiirada wafdiga socday markiiba ay lacag dib loogu hawlgeliyo ceelashaasi dibna dadka biyo ay ugu helaan markiiba la bixiyay oo la hawlgeliyay waxa kale oo ra'iisul wasaaraha ujeedka safarkiisu ay ahayd sidii uu u dhiirigelin lahaa ciidamada qalabka sida ee ku jira jiidda hore oo uu la kulmay qaarkood kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda nabadiidka oo ra'iisul wasaaruhu uu ku tilmaamay inay yihiin ciidamo mujaahidiin ah oo geesiyaal oo shacabkooda mar walba u taagan sidii ay u badbaadin lahaayeen dhinaca kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka hadlay socdaalkii uu ku tagay magaalada Tunis ee wadanka Tunisia oo uu kaga qayb galay shirkii caalamiga ahaa ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Japan oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in guul uu ku soo dhamaaday halkaasi oo khudbad ka jeediyay isla markaana wafdiga Soomaaliyeed ee ra'iisul wasaaruhu uu hogaaminayay ay kulamo kala duwan la yeesheen madaxdii dalalkii kala duwanaa ee ka qayb galay shirkaasi sidoo kale ajadayaasha shirka golaha wasiirada ee maanta waxa kamid ahaa xaaladda amniga oo xogtii ugu dambeysay ay ka bixiyeen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga oo ka warramay dadaalka dawladdu ay wado ee la xiriira sidii amniga dadka Soomaaliyeed loo sugi lahaa iyo ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha oo isna ka warramay halka ay marayso hawsha dadaalka la xiriirta gurmadka abaaraha oo hay'adii dhawaan dib loo hawlgeliyay ay markiiba ka hawlgashay taasi oo faahfaahin dheer uu ka bixiyay wasiirka arrimaha gudaha hay'adaasi Sodma halka ay wax marinayso marka guud ahaan qodobada shirka looga hadlay oo kuwa muhiim ah ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku adkeeyay wasaaradaha ay qusayso in hawshooda ay sii dardargeliyaan isla markaana aysan jirin waqti la sugi karo shacabka Soomaaliyeedna u baahan yihiin in si degdeg ah baahidooda looga jawaabo